بسم الله الرحمن الرحيم waxaad ku soo dhawaataa qaybtii labaad ee barashada farta ama alfabeetada dadka maqalka naafada ka ah ama dhagoolayaasha halka aad casharada kala socotaan waa iskuulka dhagoolayaasha ee Towba maanta waxaan baran doonaa 6 xaraf oo ka kooban xarfaha alfabeetada dadka maqalka naafada ka ah ama dhagoolayaasha 6 xaraf waxay kala yihiin waa G H I J K L ama haddana af Soomaali u akhriyo G H I J K L xarafka ugu horeeya ee G farta murdisada ah iyo suulka ayaad kor u sii taagaysaa adigoo u qaloocinaya dhinaca bidixda waa G xarafka H waxaad sameynaysaa farta murdisada iyo farta dheer ayaad qaloocinaysaa oo sidii bistooladii ayaad ma aragtay u taagaysaa labada faryarada iyo farta dhexe iyo suulka waad isku qabanaysaa waxa loo yaqaanaa H ama H E ama I waxaad kor u taagaysaa faryarada waxaad laabaysaa farta dhexe farta dheer iyo murdisada waxaad dusha ka saaraysaa suulka sidoo kale G waxaad kor u taagaysaa faryarada saddexda far ayaad soo laabaysaa suulka ayaad hoos u dhigaysaa ee dusha ka saarimaysid xoogaana waad yar qaloocinaysaa K waxaad kor u taagaysaa farta murdisada iyo farta dheer labada far kale waad soo laabaysaa iyo suulka L ama L waxaad kor u taagaysaa farta murdisada waxaad jiifinaysaa suulka waxaad laabaysaa saddexda farood ee faryarada iyo farta dhexe iyo farta dheer waxa loo yaqaanaa L ama L intaasi waxaa noogu dhamaaday qaybtii labaad ee casharkeena alfabeetada ee dadka maqalka naafada ka ah mahadsanidin